عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. On the authority of Abu Sa'd al-Khudri, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah say, whosoever of you sees an evil, let him change it with his hand, and if he is not able to do so, then let him change it with his tongue, and if he is not able to do so, then with his heart, and that is the weakest of faith. Narrated by Muslim. waxaa laga wariyey Abu Saciid al-Khudri eebbe ha ka raali noqdee inuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo leh ruuxii xumaan arka oo idinka mid ah gacantiisa ha ku beddelo hadduusan awoodinna ha ku beddelo carabkiisa hadduusan awoodinna ha ku beddelo qalbigiisa taasina waa ka ugu liita iimaanka. waxaa wariyey Muslim.